ninka maanta ku yiri ordo qori qaado magaalada aad degantahay isbaabi ninka saacada uu koobaada horta waa dunia aabaheed wastay dadkii loogu talagalay in iskuulada iyo aqoonta iyo waxbarashadii ay ka saaqadeen in dib loogu celiyo ba maanta baraha bulshada intay noo soo fadhiistaan doonayeen anaga wax noo sheegaan bal ninkan dhageyso haye reerkii garxaajis loo oran jiray haddaad ogeydeen gala dagaalka garxaajis waxay soo saareen gala jihaad abaha jahilnimada ka waxaan uu watay jahilnimada soo jiray nimankii reer ayahay ahaa galkay seefta kala bixeen بلينا هم إني كل هالشيء جاهل لما ده أنت عليك داو ونكاس ماشي على صفريه يا وعني عقلي حمدي جاهل لما دي بروح قدر صديق عقلي حمد بلا عقلي بلا فكر ودتك برها بالشدة بريها ندمك وصابتي أمدي الصوماليين يجوا ذيك جناح سنة يوي شعبك الصوماليين بفيش لقول هذين يجوا دي ومالين بالليل هريري بالها أنت سد كل شيء dadka noocan oo kale ay qaar kale far badan oo kuwa ku taageera oo ku baraarujiya oo garab ku siiya oo maanta moodayay inay ummadda Soomaaliyeed inay u hiilinayaan warmaalin bareer baa laga soo jeesanaya waa dad ku tashtay inay ka baayac mushtariyaan ama ay ka ganacsadaan dhiiga daadanaya shacabka Soomaaliyeed dadka noocan oo kale laakiin nin kasto aqli loo fahmaya laakiin bulshadii Soomaaliyeed maanta waxa ku batay dad aan bilaa aqliya oo aan fakirin oo dadka noocan oo kala garab iyo taageero ku siinaya ninka maanta ku yiri ordo qori qaado magaalada aad degantahay isbaabi ninka saacada uu koobaada